marka koowaad waan salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer SSC iyo si gaar ah shaqaalaha iyo maamulka macallimiinta ardayda jaamacadda Alfa University Laascaanood waxaan intaa ka bacdi saaka halkan aan doonaynaa inaan ku duubno ama aan la wadaagno bulshada khaasatan bulshada reer Sanaag si gaar ah dadkii ka soo barakacay degmada Ceergaabo iyadoo ay jaamacaddu ka direen celinayso barakaca iyo dhibaatada ku dhacday dadkaas ka soo barakacay deegaanadoodii iyo guryahoodii khaasatan dhalinyaradii waxbarashada ku jirtay hadday yihiin kuwii jaamacadaha ku jiray iyo hadday yihiin sidoo kale ardaydii hadda dugsiyada sare dhamaysay ka soo barakacay deegaanadoodii isla markaana soo gaaray magaalada Laascaanood isla markaana aan ku biirin wax goob waxbarasho oo jaamacad ah taasoo ay keentay duruufo xagga dhaqaalaha ah oo u saamixi waayay markaas inay jaamacadaha ku biiraan maadaama ay yihiin dad soo barakacay deegaanadoodii ka soo barakacay arrintaas oo runtii nagu haysa danqasho iyo culays jaamacadda Alfa Laascaanood waxay go'aamisay in dhammaan ardaydaas ilaa iyo haddaan jaamacadaha ku biirin reer Ceergaabo in jaamacadda loo fasaxo oo ay ku biiri karaan dhammaan kuuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Alfa University Laascaanood iyadoo oo aan lagu xidhi doonin haba yaraatee wax dhaqaale ah oo markaasi guud ahaan waxbarashada looga dhigi doono bilaash ama si bilaa lacag hadday tahay ardaydaasi ardaydii hadda jaamacadaha ka baxday iyo sidoo kale kuwii hadda iskandariyada ka baxay intaba ardayda ka baxday jaamacadaha kale meeshii ay xidhantay oo jaamacadaha xidhmeen waxaan rajaynaynaa insha Allah in la fududeyn doono wixii shuruud ah oo ku xidhnaa inay markaasi galaasyadii halkii ay marayeen ay ka sii wataan marka wixii shuruud ah halka ku xidhnaa insha Allah wixii suuragal waa la fududeyn doonaa marka waalidiinta iyo ardayda waxaan u sheegaynaa in ay iman karaan jaamacadda kuna biiri karaan kana caawinayso jaamacaddu insha Allah waxbarashadooda inta deegaanadoodii iyo dhulkoodii uu noqon doono insha Allah dhul nabadgelyo waxbarashadooda ay ku laaban doonaan ay jaamacaddu insha Allah ka qaabili doonto waalidiinta iyo ardaydaba xagga waxbarashada sare ee jaamacadda